Puntland ama maxkamadda sare baarlamaankuna marjic u noqdo oo ama weydiisto ama iskale anuu marka uma soo galin waxaan u soo galay anigu simply inaan bal waxaan hadda ka socdo aniga laftiga igu soo beegmad anu garoobaan joogaa hadeer breegi yaraado waan ka soo kacay xamar baan rabaa inaan ku noqdo 2 maalmood ka bacdi haddii alla idmo hawlahaas baa halka ii yaalla marka waxa halkan bal aqoon yahanadiina iyo dhalinyaradiina iyo arrimaha Soomaaliya meesha u socdaan iyo waxaas oo dhan bal fikriga aad ka qabtaan iyo waxaas inaan ogaado baan u soo galay hadda haddii aad specifically wax gaar ah oo jiray ama dadka kale ay ogeyn waxaan idinka iraahdo oo general waa jeclahay arrintaas baa horta aniga soo galkaygu yahay haddii aan wax yar inta idinka istiimiyo horta aad baan uga xumahay in waqtigan momentumkan Soomaaliya ay ku jiro oo iyadoo dib u dhac ku jiro doorashadii 2000 iyo la rabay inay dhamaato 2020 inay dhamaato gabagabadeedii oo madax cusub timaado February intaas ka horna dhowr bilood oo 2000 iyo 20 September hogaankii la gaaray iyo waxa ay timaado hal sano iyo bar waa ka badan tahay hadda inta maartay aan wareegayno in hadda khilaafiyo ay ka yimaadaan iyadoo xamar lagu shirsan yahay oo maamuladii dadkii madaxda ka ahaa xildhibaanadii oo dhan ay joogaan intoodii badnayd xildhibaanada joogaan maamuladiina ay joogaan madaxdoodii qayb ka mid ah in ka kale la sugaayo waqtigiina loo ballamiyay in gadaal sarqabi ka yeedho gobol maamul goboleed kasta mid kasta ba ahaatee haddana Puntland uu joogo aan joogo anoo raadiyaal waan idaacada waa ka hadli karaa wax waa qori karaa laakiin waa ka gaabsaday inaan caawa martidiina bal aan idinku ahad aniga laftii marti dul saaran inaan ogaado waxa idinku qabtaan maan horta anigu soo galay waxa kaliya aan ku dari karaa waxa weeye waa wax nasiib daraa inagoo halkaas koor ogadood saaran oo doorashadii Soomaaliya oo dhan la sugaayo natiijo fiican iyo dadkii dhinac isu wada raaca iyo kadig iyo ka baxday maxay kufkacay aan ka baxno oo dariiq fiican aan qaadano oo natiijo fiican inoo soo baxdo in sarqani ka yeedho maamulada qaar kood waliba Puntland oo maamulka ugu horeeyay ay ka yeedho waxaan aad uga xumahay weeye anigana kulay joogitaankii hadda igu xun aan ka xumahay sigaara idinka dhageysigeena waan ka faa'iideysanaya waan maqlayaa aniguna wixii kale oo layga baahdo oo jawaab su'aal waa ka jawaabi karaya waxaan kaliya ku xirayaa waxa weeye political culture bay Puntland lahayd way iska jiraan moogtay nin madax meel ka shaqeeyaan oo isku qabtaan ama wasiir ku xigaan ahaado ama madaxweyne ku xigaan ahaado ama barnaamijka gudihiisa in khilaaf ka dhaco waa wax jiri karay waa xalis ma jiray si kasta ku xalismeena laakiin tan hadda joogta momentumka ay ku beegantay baa wax laga xumaada oo Soomaaliya ku xun annagana nagu xun wixii Puntland joogana ku xun qolooyinkayga halka senatoriyaasha ka oo xilka gaari ka saaran yahay ku xun marka muddo yar baa ku kala dhamaanayaan 15 madaxweyne la dooranaya malinta ka horeysa anagu guud ahaan loo eego si fiican baa la isu bedeli jiray marxooga ay dhaceen waa jiday oo hore oo khilaafi jireen muddo xileed intuu dhamaaday misna siyaalo kale oo dastuurka uu sanqeexay wax u dhaceen way jiray bari hore oo hadda aan dib aan ugu noqon laakiin dastuur la sameeyay wax khilaafa oo bantu banaanka u soo baxay sida hadeerahay wax u dhow gaaray midna ma jirin hadduu jirana oo laba nin oo meesha wada joogaan iyaga isqarsan jiray oo dhaxmood jiray institutionka jira dhaxooda ayaa lagu dhameyn jiray baa lagu dhex jiray marka political culture bay lahayd weligeed waxay inuusan meel fogaarin iyadoo is ceshato bay lahayd saasa u dhaqan ah